waxaan weydiisanayaa xukuumadda Soomaaliya iyo xukuumadda Garowe iyo dhammaan meel kasta Soomaaliya joogtaba magangeliyo maandaaba oo dalkaygii iga soo dhacay tacadi anigoo gabadh yar oo dhalinyaro ah oo ma garanaysay wadankeedii ka soo kacday oo maxay tahay xukun ku dhacay oo meel kasta Soomaaliya way joogtana magan amba miciin soo biday oo wadada dheer soo dhigtay oo aan garanin meel aliya meel ay ku socoto iyo meel ay ka socoto maadaama aan gabadha aan Soomaali wada garanayn oo inaan yaro ku cusub aaladii social media oo ma garanaysay aan meel badan dhalinyaro badan iyo garab badan aan ku aqoonin haddana dhalinyaro badan oo ay kacdo soo dhaweysay baa jirta ma sha Allah oo aan ka abaalka dareenin oo ay badankoodu ila qaybsadeen dareenkan dareemayo meel kasta Soomaali joogtana aad baan u salaamay wax kasta oo ka damqaday dareenkayga iyo maxay tahay arrimaha igu dhacay iyo cadaalad darrada igu dhacday iyo xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi wuxuu igu la kacay maadaama aan ahay inay yar oo dalkeedii joogta waxay ahaayeen inay iska hubsadaan xukunkayga inay ma garanaysaa hoos iyo eegaan inaan ahay gabadh inana oo ma garanaysaa wadankeedii weligeed ka bixin oo ma garanaysaa ku cusbaalada in waxyaabahayga lagu noqdo arrimahayga oo ay dawladdu ku noqoto baan jeclaa laakiin may dhicinin waxa la iska geeriday ganaax aan ku soo fardhaday ku soo baxsaday miciina ku weydiisanayo dhammaan Soomaali weyn meel kasta joogto oo aan uga imid madaxweynaha iyo xukuumaddiisa oo aan uga imid wadankaygii familkaygii asxaabtaydii shakhsiyaadka qalbiga wanaagsan aan aad ka waaqaanay halka waxaan uga mahad celinayaa cid kasta oo garab siisay iyo cid kasta oo xaaladayda dareentay iyo ma garanaysaa cid kasta oo jecel inay garab siisana aad baan u soo dhaweynayaa dhalinyarada reer Garowena waxaan leeyahay aad baad u mahadsantiin sidii soo dhaweyseen way ka geysan tahay mar kasta waan idin mahadnaqayaa dhalinyaradu meel kasta joogta aad bay isugu xiran tahay marka asxaabteeda qaaliga waxaan leeyahay sida ay la socda hawlaha waxay igu soo biiray insha Allah bidnillah waan idin la socodsiinayaa meel kasta Soomaali joogtana waxaan rajaynayaa inaan tagi doono aniga oo ka turjumaya inaan Soomaaliyeed oo ma garanaysaa wadankeedii tacadi looga soo geystay mar kastana sheeganaysa waxaan dib qabo ee xukuumadaydu ay soo geysay waayo waxaan ahay inaan tacadi ku dhacay ma jirto qof la iska xukumo anigoo inanaba xukun igu dhacay aanan wariyo wacal ka haynin ilaa iyo maalinka arrinkayga ay dawladdu ka hadlaysana waan ka hadlayaa meel alliya meel aan ku dhaafayo xukuumadda Muuse Biixi Cabdi iyo dadkii xukumay iyo maxkamadda Burco ma jirto meel kasta waan la taagnaanayaa sababtu tahay waxay geysteen xukun sharci darro ah dhammaan cid kasta oo arrinkayga gali karta oo ma garanaysaa kamida siyaasiyiinta Soomaaliland waan ugu baaqayaa in la ii sheego anigu wixii la igu xukumay iyo sababta wuxuu dhacay yadaan la ii weydiin aad baad u mahadsantiin asxaabay waan idin barnaamijyo badan ay la soo wadaagi doona baa jirta waxaan idin leeyahay dhammaantiin aad baad u mahadsantiin asxaabta halkan joogta aad baan uga mahad celinayaa sidoo kale waxaan halkan mar kasta ka xusayaa inaan kaygu soo dhaweeyay Garowe asxaabta igu wada xidhay Adnaan yar wiil mudug aad baad u mahadsantahay baan leeyahay